الله نوراته حسب كل مين هقوليستو مسبح عبد هقوليستو تدوينها الريال الله نورادان كان هانتك مدمر انت كذب واحد فيليا ومالنتي لحاليا فقارهان ka wada hadallo waxaan idin sheegay waxaan idinku soo noqnoqonayno anigu maanta waan idin dardaarmayaa laba qodob baan idin kala dardaarmayaa war soo ismaqli mayno labada qodob baan idin kala dardaarmayaa waxa weeye ta koowaad qof oo inaga tirsan oo gobolkeena ka tirsan oo deegaankeena ka tirsan waxa laga doonayaa in oo maalinta codaynta ee bisha 13 ay tahay qof walba footeeyo taas musabiixi xisbiga kulmiye ugu hiilisana waa taa taas Soomaaliland ugu hiilisana waa taa marka waxaan leeyahay qof walba qofka habsaamay way talabaad waxa weeye halkan waxa uu soo guuri doonaa dad fara badan oo iyaguna magaalooyinka Hargeysa iyo nawaaxigeeda ka iman doona oo iska ratisargareeyay deegaankeena waxa la doonayaa dadka inay soo dhaweysaan in meelo wanaagsan dejisaan in qof waliba qofka kale uu soo dhaweeyo oo ilaaliyo oo hadii beedankeeda leeyahay martiga inagu yaqaaniyo matisoolkeeni wanaagsan samaysaan naga diyaar tasajaxad waxa weeye walaalayaal qaranka waxa ku soo kordhay waxaynan hor u aqoon walaalayaal maqlaysaan walbaalkii kaarka loolan jiray waa loo soo galay waa soo moogin baalkii kaarka hal laba qodob baa lagu sameeyaa qodobka koowaad waxa weeye nin baa ururaya meesha uu siraahdo xisbiga calanka casaan way isla garanayna meesha isla waa laga badinaya kaarka uu googoynaya wuxuu ka dhigayaa waxa aan tirsanayn talabaad waxa weeye kaarka waa lagu soo celinayaa waa la sawiraya kaarkaaga inaad timoy magacaaga afran baa ku qoran waxa kale ku qoran goobtaas ka codaynayso iyo siriya nambarka inta marka laga sawirto sida tay salaada loo soo sameeyaa kaagi salaada hore ayuu abdaal goor hore galay qof kale isaan ku eeg oday ku eeg ina ku eeg dawladna waxa dhacaysa waa aragtay ka buug baa yaala Soomaha buugga magacaaga saddexan baa ku qoran ma afran waa la saxaya hadhow waa samaysaa odayga adigu waa lixoodaad iyo waxa iska soo dibanayay waa soo galaysaa awal hoosi xawo jaamacad baa lagu qoranayaa dawladda xawo jaamacad xagee bada waxba ka dhamaanaya bilayska lagu dhigo jeelka madheeraha lagu kaxeeyay war soo garmaysaan marka waxa weeyaan bahalkaaga iska daa wax dhimisa dhiibto wayna laga sawiro waxaan kale idinku baaqaya cid aragtaan ee kaan urinaysa soo ismaqli mayno ciidamada bilayska qaranka waxay ku amrayeen inay qabtaan oo la xidho waxaan leenahay ka bilaysa qofkii waxa uu leeyahay haddii diin dadweynaha deegaankan waxaan doonaynaa inay bilayska u sheegtaan si loo xidho oo maxkamadda loo tigsado taana waxaan ku dardaarmayaa inaad samaysaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin shucuurtiinnan iyo qiimihiinnan quruxda badan ee aan idinku aragnay ee ugu heelantay xisbiga kulmiye waan idin salaamayaa xisbiga kulmiye ha guulaysto musabbix ha guulaysto waana idinku leeyahay walaal salaam alaykum